ruushka magaalada Petersburg dhismaha ciidanka ka dhigtay halkan waa meesha sare ee dhismaha qaybtii hoose ayaa lagu qusiyay dhulka waxaan cabirnaa ereerka daaqada dabaqa saddexaad isbarbar dhig daaqadaha dabaqa koowaad kala bar dhererka daaqadaha ayaa ka hooseeyay heerka asfalt taariikhyahanadu waxay sharxayaan in dhismuhu uu dhulka ku dhacay miisaankiisa sida la sheegay dhismuhu si tartiib ayuu degay waxa uu hoos ugu dhacay dhulka sentimitir sanadkii sawir hore oo dhismahan ah sawirka waxaa la qaaday 110 sano ka hor dhismuhu waxa uu la degay dhulka si la mid ah heerka maanta 110 sano dhismuhu ma dumininaba ma aha sentimitir ma aha inch waxaan isku daray sawir duuga iyo mid kasri ah waxaa si cad u muuqata in heerka dusha sare ee wadada uusan gabi ahaan isbedelin 100 sano deerka dabaqa koowaad ee dhulka hoos ugu dhacay ayaa sidii hore ahaa sawirada dhabta ahi waxay ka hor imanayaan sheekooyinka taariikhyahanada bal eeg albaabada hore albaabada waxay jebiyaan astaanta dhismaha tani waa meesha laga soo galo dhexe laakiin albaabada laga soo galo waxaa qariyay karo maayqodin albaabka laga soo galo waxay ka tagi lahayd god dheer oo wadada hareeraheeda ah meelihii laga soo gali lahaa qaybaha kale ee dhismaha la jebiyay way ka fududayd in derbiga la jebiyo intii la wada qodi lahaa dhismaha oo dhan dhisme sidaas u weyn dhulka ma dami karo burbur la'aan taariikhyahanada nacasnimada ah wax fikrad ah kama qabaan in dhismayaashu had iyo jeer u degaan si aan simanayn dhismaha waxaa lagu dhisay leben haddii degsigu yahay mid aan sinnayn gidaarada lebenku hubaal way dilaaci doonaan dhismuhu wuu dumaya laakiin qaab dhismeedka qadiimiga ayaa si fiican loo ilaaliyaa marka loo eego qaab dhismeedka dhismuhu waa inuu lahaada dabaqa koowaad oo buuxayo sakhad hoose ilaa 2 mitir ayaa dhulka hoostiisa ahaa waa kuwan raadadka masiibada ay taariikhda cilmigu karanayso